kulankan oo ahaa mid dhalinyarada loogu wacyigelinayay arrimaha amniga iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka gobolka iyo sidoo kale ka wacyigelinta dhalinyarada arrimaha tahriibka ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo ay ugu horeeyaan maamulka gobolka xildhibaanada iyo sidoo kale xubno ka socday golaha wasiirada iyaduna kulankaasi ay taabagelinaysay hay'adda TIS Plus xafiiskeeda magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaa kulanka lagu casuumay dhammaanba ururada dhalinyarada heer maamul goboleed heer gobol iyo sidoo kale heer degmo iyo dhammaanba dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. ugu horeyntii waxaa hadal kooban ka soo jeediyay kulankaasi Cabdiwahaab Bilaal oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland iyo Axmed Taqal oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose. aad iyo aad u mahadsan waxaan kaloo mahad celinayaa saraakiisha mashruuca xasilinta Soomaaliya ee TIS mudane Liibaan iyo tiimkiisa iyo dhammaan wasaaradda barnaamijkan lead ka ah agaasinkeeda iyo abaabulkeeda intaba dhammaantiin waxaan leenahay dhammaan dhalinyarada Jubbaland wiil iyo gabdho waxaan u rajeynayaa guuleysta. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaan ognahay maanta in dhalinyaradan Soomaaliyeed looga faa'iideysanayo mabda' diimeed oo qaldan runtii inta yar oo dhaqaale shaqo abuurka looga faa'iideysanayo waxaa ka badan inta mabda' qaldan diimeed oo qaldan laga dhaadhicinayo. waxaan ognahay dhalinyarada lacag haystaan oo dal shisheeye joogaan oo dibadaha joogaan intay ka soo tagaan dalkoodii intay dibadaha ka soo tagaan shaqadoodii ka soo tagaan waxbarashadoodii ka soo tagaan isku qarxinaya dhulkoodii hooyo. waa dareemi kartaa culayska ay leedahay iyo waxa ka dhaadhacsan ninka isaga marka lama dhihi karo waxyaalaha markaasi aan isleeyahay waa muhiim in dhalinyarada wax walba laga wacyigeliyo. sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni waxaana uu dhalinyarada ku booriyay in ay midoobaan oo ay isbedel keenaan. hadday dhalinyaradu aysan midaysnayn oo san hal abtir lahayn ma keeni karto isbedel. waxaan idin leeyahay dhalinyaradiinan maanta joogta ee reer Jubbaland in aad isku daydaan in aad keentaan isbedel horumarineed isbedel dhaqan dhaqaale isbedel isdhexgal bulshadeed. isdhexgalka bulshadu wuxuu ka bilaabmaa dhalinyarada. ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay oo soo xiray wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Jubbaland Sheekh Maxamed Awlibaax waxaana isna dhankiisa uu sheegay waxa dhimanaya oo tahriibaya oo hooyada dhigay gablanka dhigay waxa weeye waa taad aragteen canugi secondary buu ka baxaya jaamacad buu dhiganaya intaas lagu soo rafaadaya male meel uu shaqeeyo waxa ku kalifay inuu tahriibo waa arinta madaxda dalka joogto Soomaaliya waxaan leenahay dhalinyarada la tixgeliyo hala siiyo shaqo ha noqoto federaal aan noqono dawlad goboleedka Jubbaland. kuwa isqarxinaya oo nafteena goynaya oo kii la dhashay iyo aabihii dhalay iyo kii dad u xigay dilahaya waa dhalinyaro maskaxda laga haday. waxaan rabnaa iyagaasna in aad ka wacyigelina dadka ka wacyigelisaan dhalinyarada la soo dhaweeyo ee shaqo abuur helaan. Aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.